walaal shaahid hal wax ayaan ku weydiinayaa aan ku wareeray qofka marka aad wanaag ama qiimihiisa meel sare aad gaarsiiso muxuu kaaga tagaa ama xadkii loogu talagalay aad dhaafiso wuu kaa tagayaa maxaa sababa walaal baliis isoo jawaab dunida waxa loogu jecel yahay ee macaan waa malabka waxa loogu neceb yahay ee qaraar waa sibirka haddii maanta koob malaba lagu keeno lagu yiraahdo cab jirkaagu wuu diidayaa beerkaagu wuu diidayaa maskaxdaaduna way diidaysaa waayo uma qaabeysno in hal mar aad wax tiro badan oo macaan wada cabtid sidaas si lamid ah sibirka waa waxa ugu qaraar haddii koob sibir ah lagu keeno ma cabi kartid jirkaaga oo dhan baa diidaya soo dhawow waa saaxiibka shaahid bisaani oo marar badan kaala hadla nolosha xiriirka iyo caafimaadka videogan waxaan uga hadli doonaa xiriirka waxaa dhacda mararka qaar in qof aad naftaada u hibaysid markaad u hibeynaysid waxa laga yaabaa inaad ka fikiraysid in aad boqol qofkaasi u noqotid wax walbana aad diyaar ula noqotid waqti juhdi iyo qarashba diyaar baad u ahaanaysaa si qofkaasi naftiisa aad u hanatid muddo markaad la socotid wixii way isbedelayaan sababtuna waxa ay tahay bilaadan baynu nahnay bilaadankuna wax walba waa inuu xad u isticmaalaa haddii aad xadkiisa ka badisid maskaxdaada iyo jirkaaga ma ogolaanayaan marka sababaha keenta qof aad wanaajinaysid oo aad wax walba diyaar ula tahay way badan yihiin laakiin haddii loo eego haddii aad qof wanaag badan tahay sababta ka dambaysa in qofku uu ku dhibaateeyo ama meel cidlaa kaaga tago isla wanaaggaasi aad samaynaysid ayaa sabab u noqonaysa inkastoo qofku siyaabo badan uu ku tago ay ku xiran tahay xaaladda aad maanta ku sugan tahay laakiin haddaad is og tahay inaad wax wanaajinaysid aysan ahayn waxa wanaajinaysid mid qayaano ku salaysan oo qofku meel cidlaa kaaga tago waxaa sababaya in xadkii aad dhaafisay wanaagga qofku inuu kaa tago waxaa sababaya jacaylku waa mid ku salaysan dheelitir sida miisaanka oo kale haddii miisaan aad haysid labada dhan aad tumin iyo tumin ka saartid waxa uu ahaanayaa mid dheelitiran laakiin hal dhan haddaa ka saartid rubac laba tumin aad dul saartid kan kale kor buu u kacayaa kii kalena hoos buu aadayaa haddaad adigu jacaylkii oo dhan wanaaggii oo dhan wixii markaasi aad qofka isla wadaagi laheedan oo dhan adi aad qabanaysid waxa aad noqonaysaa mid hoos aada oo culayskii dhan uu fuulo qofka kalena wuxuu noqonayaa mid kor aada marka aad hoos aadid waxaad u muuqanaysaa qof aanan waxba ahayn waxaana imaanaysa qofka kale inuu kaa soo qaado inaadan waxba ahayn waana tan sababaysa inuu tago haddii aad qof wanaagsan tahay wanaaggaagu ha ahaado midaad tartiib u bixinaysid haddii maanta qolka uu ku yaallo quraarad ama dhalo malab ah hal mar ma wada cabi kartid maalin walbaba qaanda ama malgacad ayaa isticmaalaysaa ama wax kale ayaad ku cunaysaa laakiin haddii aad malabka soo wada qabatid oo damacdid inaad hal mar wada cabtid ma wada cabi kartid way kugu adkaanaysaa waxa laga yaabaa markaad xoogaa cabtid inaad marka dambaba nacdidbo uu meeshaasi kala bar iskaga haddii aad wanaag bixisid waa inaad sugi kartaa intii wanaaggaasi lagaaga mahad celinayo ama wanaaggaasi uu ka gudbayo adigoo wanaag markaasi bixiyey isla markii wanaag kale haddaa bixisid qofku waxa uu noqonayaa qof aan muuqan adigii baa noqonaya qof muuqdo markaad noqotid qofkaasi waxa uu luminayaa xiisaha marka uu lumiyana adiga ayaa waxa aad noqonaysaa mid mar walbaba xiisihiisa taagnaada xiisahaagu markuu taagnaadana hadalka ayaa badanaya shakiga ayaa kugu badanaya su'aalo badan ayaad isweydiinaysaa qofkii baa culays sii saaraysaa markii aad dhaqdhaqaaqa joojisine qofku waxa laga yaabaa in uu is yiraahdo awalba asaa dhaqdhaqaaqi jiray ka warsug waana tan sababta meeshaasi inuu dhibaato weyn ay dhacdo badanaa markii qofka aad wanaajinaysid niyaddana aad ku haysid inaad aad u jeceshahay waxa aad ka dhooraysaa dhibaatada waxa aana mar walba ku dadaalaysaa inaad qofka cududaar u samaysid qalad hadduu galo ama wax qaldan uu sameeyo ama si ay wax ka noqdaan waxa aad ku dadaalaysaa cududaar inaad u samaysid isla markii cududaarka ha ku degdegin qofka qalad hadduu galo waa inuu ka soo noqdaa waa inuu ku dadaalaa inuu la yimaado in qaladkaasi ka dhacay uu cafis dalba karo laakiin isla markii hadduu adiga jacaylka ku hagayo oo aad isla daqiiqadii qofka cududaar u samaynaysid mar walba niyadda wuxuu ku haynayaa hadduu qaldamo inaad u cududaaraysid waana tan sababta in meel cidlaa lagaaga tago si meel cidlaa aan lagaaga tagin qofka hadduu kaa qaldamo isla marka aad cududaarka ha samaynin waa in qofka asigoo cududaar la yimaado noqon karo mid adiga kuu cuntamaya xitaa haddii uu ku cuntami waayo cududaarkaasi waa inaad qofkaasi u digtaa oo aad ku dhihi kartaa waxaan macquuli lama aha laakiin mar dambe yaysa dhicin
isla wixii aad ka digtay qofku haddii uu joogteeyo qofkaasi qof noloshaada u baahan ma aha waa inaad go'aan adag oo wanaagsan ka qaadataa haddii qofka aadan dareensiinin inay wax idinka dhexeeyaan waxa idinka dhexeeyana midkiin midka kale uusa gees ka wadin qofka kale wuxuu uu luminayaa xiisaha uu shakhsiyadaada u hayay xiisahaasi marka uu lumiyo adiga waxaa kugu badanaya inaad garbaha saaratid mas'uuliyad aad u tiro badan maalinta dambana uu meel cidlaa kaaga tago mar walba niyadda geli in labadiina ay wax idinka dhexeeyaan aysan ahayn keliga inaad wax qabatid ee aad ku dadaashid inaad wax wada qaban kartaan wax wada saxi kartaan si midkiin midka kale shakhsiyadiisa loo xiiseeyo ka aad wanaagga badisid ama aad noqotid qof aad u macaan aad u wanaagsan waxaa imaanaysa qofka kale inuu qorshooyin gooni ah samaysto siduu u noolaa lahaa asiga uu ka fikiro waayo dhankaaga cabsi kama qabo inuu ku waayo dhankaaga kama qabo wax dhibaataa qorshooyinka gooniga uu sameynayo iyo waxyaabaha qaaska u ah adigu dhibaato ayay kugu noqonaysaa mar walbana waa ka fikiraysaa mar walbana waxaa is leedahay adigaba qorshahaaga waa usoo bandhigtaa waana wanaajisaa muxuu kuugu soo bandhigi laayahay sababtuna waxa ay tahay kama sugtid qofka inuu wax kuu soo bandhigo adiga ayaa mar walba wax soo bandhigayo qorshe iyo go'aan iyo sida loo noolaa lahaa xiriirka lagu sheegayo micnihiisa waxa ay tahay muuqasho inaad labadiina muuqataan ficil iyo hadal iyo wanaagba laakiin haddii uu hal qof muuqdo kan kalena uu noqdo qof aanan muuqanin qofka muuqda ayaa culayska aad u fuulaya kadibna waxaa dhacaysa qofkaasi in culaysku uu ku bato markuu ku bato heer wuxuu u gaarayaa meeluusan iska qaban karin uu gaaro kadibna naftiisa uu eedeeyo haddaba si aad aad ugu noolaanin ama aad istiraadi qof walba aad wanaajisid muxuu kaaga tegayaa marka hore xisaabtan haddii aad macaan tahay dadka qaando ama malgacad u sii macaankaaga ha ku wada shubin waa saaxiibka shaahid baysaani haddii aad videogan ka heshay asxaabtaada la wadaag wixii fikirkaaga ah commentiga waad igula wadaagi kartaa ama wixii maskaxdaada ka guuxaya meel walba aad dunida ka joogtid allah kugu xifdiyo asalaamu calaykum